Asalaamu calaykum asxaabi kusoo dhawaada mar kale janaalkeena. Maanta waxaa miiska noo saaran maaha taxane Turki ah, waa taxane Kooriyaan ah. Dhankaas iyo waxaa ka dhaxayna hadda Kooriyaanka. Taxanahani waa taxane aad u xiiso badan. Season 1 soo baxay 2023 mise 2022 ma ahayd. Ilaa haddana la sugayo season 2giisa. Muddo badanna la sheegay inuu soo baxay haddana baaqaday. Sababo la xiriira dhanka iyo farsamada waxa ahaay loo adeegsanay yacni VFX loo adeegsanay. Marka taxanaan muddo badan wuu baaqday laakiin ugu dambeyn hadda wuxuu soo bixi doonaa waqtiga rasmiga ayaan ka daba geli doonaa xogaha ka soo kordhay taxanahan. Waa mid aad loo sugayo xitaa aniga aan sugayo. Ma sheegi karo dad sugaya inay ku jiraan laakiin taxanaan waa mid aad maaragtay loo wada sugayo. Waana huba kulli in ay ku jiri doonaan janaalkani dad taxanaan yaqaan ama sugaya. Kuwii aan daawan dhanka committee igu soo sheegi karaan anaa meel ay ka daawadaan ku hayga kara. Duubista filimkan waxay si rasmi u bilaabatay Luulyo bisha Luulyo 2025 sanadka la soo dhaafay. Waxayna dhamaatay bisha Febraayo sanadkan hadda aan ku jirno 2026. Taas waxay muujinaysaa hadda kulli duubista ma jiri doonto oo taxanaha filimkan yacni taxanaan looga duubi doono aktarada. Taa waxayna tusinaysaa kaliya inay u dhiman tahay shaqada waxa ahaay lagu adeegsanayo VFX iyo maaragtay muuqaalada qaabka loo tayo lahay kaliya bisa dhiman maahane hadda uma dhibno kaliya duubis kale iyo wax kale uma dhinno kaliya VFX ka loo adeegsanaya waxa ahaay waa la tayanaya muuqaalada yacni original laga dhigano. Marka taxanaha waxaa la filayaa in la daawado dhamaadka sanadkan aan ku jirno ama horaanta sanadka 2027. kulli ma dhaafi doono haddii uu dhaafactaa sanadka dhamaadkiisa haddii la daawo waayo waxaa qasab noqonaysa in horaanta 3 bil ugu horeysa mise bisha ugu horeysaba 2027 in la daawado. Sidoo kale waxaa la sheegay 4 jile ee muhiim ku ahaa season 1 ku jiray inay dib u soo laaban doonaan siba Nam Onjomya gabadha maaragtay ardayda ahayd oo la socday wiilka ugu dambeyn asigana zombiga noqonay yacni oo ku dhacay dhamaadka xalqada la weynay oo maaragtay midka asna isha ka baqaymiya oo timaha badnay oo asna toos u sii salafsanay. Waxaa la sheegay marka aktarkaas asagoo soo laabanaya gabadhan inay soo laaban doonto laakiin gabadh ay ahaa doonto season 2gan maaragtay sheekada meesha ka saldhiganaysa yacni ayadoo maaragtay sheekada kala furfuray. Hadda waxaa idin sheegay in Nam Onjo dib ugu soo laabanaysa taxanaha weliba sheekada ayada saldhig u aanayso doorka ku jilaysana waa Park Ji-ho. Lucy Hayok asigana wuu soo laabanaya oo jilaya Lemon. Sidoo kale aktarada Joy Namra ayadana way soo laabanaysaa yacni taas doorkeed wuxuu ahay yacni mid ku jilaysa waa half zombie Hambia ma dhahan ayagana soo marinay marka taasna waa gabadhii ku jilaysa yacni mid half zombie noqonaysa maaragtay oo xitaa marseeda asxaabteedu dhibaateen ayada gacanteeda qaniinaysay midaasna way soo laabanaysaa doorkii ku jilaysa isagana wuxuu ahaa Choi Hayoon. Midda ugu weyn midaan ah marka oo Lee Jok Hayoon oo dib ugu soo laabanaya asiga taxanaha waana kan maaragtay loo maleynayo inuu ku dhintay waxa ahaa iskuulka markii uu burburay oo kii kale si salafsanay ayadin dhahay bilowga muuqaalka. Aktarkaas dib kuma dhibanayo meeshaasi taxanahan season 2 si aan baqaadi doona wana ku jiri doonaa. Doorka marka taxanaha ku matalaan wuxuu ahaa Yok Jak Yeon wuxuuna marka waxa ahaay dareen qarsoodi u waxa ahaay Park Ji-ho gabadha ku jilaysay oo maaragtay qaybtan season 2gan saldhig u noqon doonto sheekada taxanaha marka iyada kadibna dhamaadkiina u sheeganaya u maleynaa kulli ma xasuusta mar ahaay qofkii wali xasuustana committee waan wada wadaagi karaa. Hadda kaliya waxaa cadeeyay in taxanaha wali aktarada muhiimka ay ku sii jiri doonaan kuwa ku soo biiray aan isla fiirina marka waxa ku soo biiri doona taxanahan aktar cusub waliba wajiga aadan maaragtay ka sii weyhaynin yacni warka dadin bayaan wajiga ku cusbeen oo yacni ku jireen taxanaha Squid Game hadda xasuusataan 2 door oo ku kala jilayeen marka aktaradaasna waa nila soo wada 2 kalena ku jiraan marka total 4 aktar ku soo biiri doonto taxanaha waliba aad xamaasid u soo kordhi doonto waan idin sheegaya door walba ay ku jilayaan iyo mid walba meesha uu istaagi doono. Waxaan idin kaga bilaabay marka 2 aktar marka hore ka qayb ahay taxanaha Squid Game haddana taxanahan jilay doono taxanooyin kor way sameeyeen laakiin hadda aniga muhiimada taxanahan waaye 2 aktar marka taxanahan ku biiray oo taxanahaas ku jiray ka bilaabayna. Kim Si-an waa atirsha ka mid ah taxanaha Squid Game kuwa ku jiray waxayna ku jilaysay doorka lagu magacaabo Yokmi waxayna wadataa lambarka euro 95 sida jeclahay. Haddana taxanahan waxay ku jili doontaa magaca lagu magacaabo Seo Joran doorkeedana waxa uu muuqdaa mid aad u xamaasad badan waliba heer sare sheekada ka sii dhigi doona taxanaha. Ayadana waxay dhinac ka ah doontaa ardayda oo dhibaateeyay viruskan oo yacni jaamacadooda oo maaragtay ayagana ka soo saaray sida teamkii hore kale ayadana ka mid tahay oo seasonkan labaad ay kuwa kulmi doonaan labadooda. Aktarka kale noogu xiga Squid Game dhankaasna ku jira taxanaha waxa waaye Roh Chun-win waxaanu ku matalaya markaa magac lagu magacaabo Nam Gyu waxaanu wataa lambarka lambarka 124 waana kan daroogada ku shaqeynaya yarkii saaxiibkiisa markuu dhintay kadib jaalaha markuu dhintay kadib kan
kala wareegaya meesha oo maaragtay daroogada le maaragtay wax ku qaban karo doorkaas uu jiray. Haddana taxanaan wuxuu ku matali doonaa Hon Doxion hogaamiye ka tirsan ciidanka sirdoonka qaranka ayuu ku matali doonaa taxanaan hadda socda season 2giisa. Kan saddexaad Lake Minjia waxaanu matali doonaa markaa Yao Maru. Asina sidoo kale arday kale buu ahay oo maaragtay jaamacadooda masaxo ah iskuulkooda ayaa dhibaato ka dhacday sidaas awgeed asagana wuxuu ka mid noqday kuwa maaragtay geesiyaasha oo maaragtay hogaaminayay kuwa badbaadaya sida ay sameynayaan tiimkii hore oo kale. Asagana wuxuu ahay geesiga ka muuqdo oo maaragtay difaacaya asxaabtiisa. Taana waxay ka dhigan doontaa markii sheekada uu kusoo biiray mid aad u sii xamaasad yeesho maxaa yeelay mid geesi ah oo la dagaalamaya bahalada zombiga haddana aanan ka cabsanaynin xitaa haddii ay ka wad badan yihiin. Doorar noocaas oo kale asxaabta mase dadka ku xiran taxanooyinka K-dramada weliba kuwa zombiga aad bay u xiiseynayaan mana ka maarmi karaan oo maaragtay wayba ku bixi sheekada inkastoo xitaa baasha ay khiyaali tahay haddana wayba kugu soconayaan. Sidoo kale doorka afraad kusoo biiraya waa Young Gai waxayna matali doontaa tirashada ayadana door lagu magacaabo Lee Gang. Sidoo kale ayadana waxay ka mid tahay markaa ardayda kuwa maaragtay fayraska uu saameeyay weliba arday jaamacad ah mase iskuul maantana jaamacad leeb ku celcelinayahay. Ayadana marka kuwaasay ka mid tahay halkaas ayayna isku baran doonaan asxaabta dhammaantooda. Hadda sheekada ma ahaan doonto marka asxaabi iskuulka waa la soo gudbay jaamacadii arrinta isugu shubanay wuxuu ahaa iskuulkii maaragtay gubinayna kuma aali doonto dad toos caasimadda la soo gaari doonaa zombigana meeshaas way ka daba imaan doonaan marka dadka halkaas ayay marka ka bilaaban doontaa halganka iyo nolosha season 2ga iyo sheekadaas isku furfuri doonto markay soo baxdo season 2ga xalqadii koowaad arki doona si wax u dhici doonaan. Marka sidoo kale directorka filimkan waxa uu sheegay maadaama season 1kii uu ahaa badbaadada aadanaha yacni dadka is badbaadinayeen season 2ga wuxuu noqon doonaa badbaadada zombiga maxaa yeelay kuwa qaar baa jiro zombiga aad u aqli badnaa ma aragtay xitaa awood ahaan ka awood badnaa marka bini'aadanka sida ay noqdeen wuxuu ahay aktarada qaar labaad sida noqotay taxanaa marka ku aragnay iskuulkeena ka mid ahayn midna xumaantu ahay midna wanaag u ahayo asxaabtaysa ayuu badbaadinaya gabri ahayd midda wanaagga marka doorkeedana waa soo sheegay saa jeclay taxanaana way sii wadi doontaa. Marka directorka hadda wuxuu sheegay in taxanaha wejigiisa looga bartay uusan noqon doono weji kale uu noqon doono marka taa waxay ka dhigaysaa in taxanaha ay dad badan oo maaragtay hamzubi miya waxa la dhahay ay noqon doonaan yacni half zombi waa halfna bini'aadan waay markaasna wuxuu ahay IQ-geedana aad u sii sareeya oo maaragtay bini'aadanka kasii aqli badan yahay waana sababta marka taxanaha loogu soo darayo sirdoon iyo maaragtay hay-ado qarsoon marka taa waxayna ka tusi doontaa yacni maadaama aktarka idin soo sheegayay oo ku jiri doona markaa door sirdoon taa waxay marka muujinaysaa in taxanaha sheekada season 2ga sida directorka sheegayo yacni waxaa dhici karta marka qaar in mala'awaal ay noqoto mugta waxa warbixin la faafiyo been abuur inay noqotay marka haddii la isku dhafto in sirdoon lagu soo daray weliba jaga sar ka haya dowladda qaranka taxanahan sheekadiisa season 2 saas waa la dhahoy kulli meesha waxbaa ka jira soo maahan qofkii saas fikradiisa maaragtay fikrad noocaas qabana dhanka committee u sheego qofkii kasoo horjeedana dhahayo zombie FC to bini'aadan qofkii dhahayna diyaarasa unahay indhaha ka dayana anagana marka saxan muuqaalka taana ku gahay inta ka kala muuqaalka saxiga lafta like-ta share-ta iyo subscribe-ka waa dhankiina muuqaalkan noo share gareeya mac salaama.